Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta bahdeena YouTube-ka DJ ku xiran aad baad u mahadsantihiin. Waa idinkiiga mahadcelinayaa sida wacan mar waliba aad noola jaan qaadaysaan. Haddii marka horeysay uu yahay uu videogan ku soo gaaro, walaal asxaabtaada gaarsiiyo sheegaray like-ta dhiirigelin ay noo tahay. Waa sida caadiyan aad noogu barateen barnaamijyadeena isboortiga dhanka iyo ciyaaraha. waxyaabihii markaas soo qabsoomay xaaladaha xalka guud ay kala marayaan. Qodobada caawa ayna soo qaadan doona ama diiradda aan ku saari doona ayaa kala ah kooxda Southampton oo hadiyad u dirtay kooxda Manchester City. Arsenal ayay barbardhac ku qabteen. Sidoo kale waxaad maqli doontaan Benzema iyo xidigo kale oo muhiim ah oo seegaya kulanka Real Madrid ee Champions League. Talow sababta maxay tahay? War laga helay xaaladda Rafael Varane imisa ayuu maqnaanayaa? iyo sidoo kale Gabriel Jesus oo yiri waan ka niyad jabnay natiijadii kulankii Southampton. Halkan arrin ayaana sabab u ah. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan. Asxaabta page-ka like share kana ha hilmaamin. Aynu ku bilaawno kulanka Southampton iyo Arsenal oo maanta indhaha lagu wada haday galabnimada 4 galabnimo ee si toos ah u bilowday. Kadib ciyaartii qaybta hore si cajiib ah ay ciyaareen. Arsenal ayaa natiijo barbardhac kala soo laabatay Southampton oo ay ku heshiyeen min hal gool. Sheekada ciyaarta qaybtii hore waxay Arsenal soo bandhigeen kubad degdegsiimo leh oo ayna ka wacnaayeen kooxda ay martida u hayeen ee Southampton. Gool ayay nasiinada ugu direen Southampton kaasi oo daqiiqadii 11aad uu dhilay ciyaaryahan Granit Xhaka. Southampton waxay ku jirtay difaac waana ku adkayd in kubadda si saxan u soo jiidaan. Arsenal qaybtaasi hore aad ayay u wacnaayeen, kaliya go'aan qaadasho degdeg ah ayay ka sheegteen. Qaybtii labaad ee ciyaarta markii la isku soo laabtay, kooxda Southampton waa fiicnaayeen, weliba mararka qaar kubadaha rogaal celiska ah ayay ku halis gelinayeen Arsenal, kuwaasi oo si xun u degay. Arsenal waxaa ka muuqday dadaal, mana jirin fursado badan oo ay abuurayeen halka khasaarinta ay marti u ahaayeen. Southampton waa laga filin karayay gool maadaama qaradaad difaaca uu jiray, waayo Arsenal si ka badbadis ah ayay afka hore ugu soo dhaqaaqayeen ilaa lagu keenay goolka barbaraha daqiiqada 65aad. Dhammaadkii ciyaarta, Arsenal kooxda martida kubadda waa ay la qabsanayeen. Arsenal mararka qaarna way halis gelinayeen xilli wiilasha Mikel Arteta ka sheegteen in kubadda cagtooda durbaba ay ka baxayso. Waxa ayna ciyaarta ku dhamaatay min hal gool oo hadiyad u ah kooxda Man City. Kadib kooxda Arsenal ku hogaaminaysay 4 dhibcood, balse kadib Southampton barbardhaci imika 2 dhibcood oo qura ay ku hogaaminayaan dhanka iyo hogaanka Premier League kooxda Arsenal. Wararka laga helaya xaaladda Rafael Varane imisa ayuu maqnaanayaa? Waa su'aal weyn oo maalmahan taageerayaasha United isweydiinayaan kadib dhaawaca ka soo gaaray kulankii xalay United iyo Chelsea. Waxay warar hordhac ah ka soo baxayaan xaaladda difaaca Rafael Varane kaasoo ku dhaawacmay kulankii ay United la ciyaaraysay kooxda Chelsea Sabtidii. Xidig reer France ayaa dhaawac ugu baxay qaybtii dambe ciyaarta kadib markii uu sii wadin kari waayay ciyaarista. Wararka hordhac ah ayaa sheegaya in dhaawaca soo gaaray Rafael Varane in uuna halis u ahayn sida laga cabsi qabay markii hore. Si kastaba ha ahaatee, xidig reer France ayaa la sheegayaa inuu garoomada ka maqnaan doono ilaa Boxing Day-ga kadib dhaawaca soo gaaray xidiga daafaca ka ciyaara. Laakiin xidig ayaa la sheegayaa inuu ka qayb ahaan doono xulka France ee koobka adduunka ee ka dhici doona dalka Qatar bisha dambe. Inta oo kaliya kuma ekee kulankii Arsenal ee barbaraha la gashay kooxda Southampton ee ku wada ciyaareen gareenka St Mary. Dib u eegis markaan fiirino, Arsenal oo boorka ka jaftay rikoor ay dhigtay sanad ka hor. Kooxda Arsenal ayaa barbaro niyad jab leh la gashay kooxda Southampton kulan ka tirsan Premier League toddobaadkii 11aad ee xilli ciyaareedka. Arsenal ayaa barbaro gashay inkastoo ay ku hormareen goolka koowaad ee ciyaarta kadib markii uu xidig Granit Xhaka goolku dhaliyay. Kooxda Arsenal ayaa barbaraha kadib boorka ka jaftay rikoor ay dhigeen muddo sanad ah, gaar ahaan bilowgii sanadka haatan lagu jiro.
Rikoorkaasi ayaa ah inay Arsenal ku fashilantay inay guul gaadho kulan ay goolka koowaad hordhalisay Premier League markii ugu horeysay tan iyo bilowgii sanadkan. Markii ugu horeysay ee Arsenal ku fashilantay inay guul gaadho inkastoo ay gool ka hormartay ayaa ahayd kulankii ay guuldarrada 2-1 kala kulantay Man City bilowgii sanadkan.